daawadayaal halkani aan joognaa waa wadada isku xidha gobolada galbeedka Soomaaliland dhawaan ayaa la dhisay waxaana loo sameeyay calaamadaha muujinaya in ay wax ka horeeyaan ama ay khatar hortaada ka jirto calaamadan iga dambaysa waxay muujinaysaa inuu halkan ku yaalo askari chief ama meel uu gaarigu ku hakan karo sidoo kale calaamada kale ee ka sii dambaysa waxay muujinaysaa in ay areadan ay ku taalo ama meelahan ay ku taalo meel iskuul ah oo carruurtuna ay ka gudbayaan dhibaatada ugu weyn ee gaadiidku ka cabanayaan waxay tahay in calaamadihii noocan ahaa ee gaariga u sheegayeen halkan wax ka jiraan dhammaantood la wada goostay maanta oo kaliya ta wadadan waxa ka dhacay 3 shil oo isku jira wax ka yar 3 kiiloomitir warbixintan waxaan ku eegi doonaa bal dhibaatada ay wadooyinka ku hayaan calaamadaha la goosanayo ee hore loogu sameeyay mushkiladka lagu wajirtaayo waxa jira dad qaliil soo maro ama marmar soo maro wadada aan hore u mari jirin ama aan garanayn wax ka horeeyo wadooyinka qaar baa soo soconaysa wadaduba go'aantoo la leexanaya moogta marka ilaa 1 mitir oo kala calaamadaha la dhigaa qolada wadada dhisaynta badan dhigtaa ama meelaha la dhameeyo kale laga taagaa marka waxa jirta dad mararka qaar aad ku soo baxayso iyago caagagii wadada loogu tala galay xidhnaa sii jiidanaya ama baabuur ka booday meeshii oo kale marka dadkaasaan iyo qaateen bilaahi ku taaganay cid looga ashkatoodana aan garabmayna waxyaabaha shilalka ugu badan keenaya qofkii aan wadadii aad u garanaynin calaamadii uu eegan lahaa ama xadidi lahayd xawaaraha uu ku soconay meelaha qaar waxa ku sheegaysa xawaaraha inta la ku sacal ugu oranaya calaamadda kugu taala mar haddaan calaamadii meesha ku ooleen xawaarina aan garanayn waxa laga yaabaa qofku iska sii daayo bahalkiiba gaariga iska sii wadadii la macaasado wadadiina wada la hagaajiyo aan sidoo hore ahayn godadkii faraha badnaa aan imka lahayn marka taasa qasab keenaysa shilalka faraha badan leh calaamadan ayaa ka mid ahayd calaamadaha la goostay ee aan la garanayn cidda goosatay calaamadani waxa ay muujinaysay oo gaadiidka xaggaasi ka soo socda ama haadkaasi soo haysta ay u sheegaysay in halkan ay khatar ku jirto balse marka gaariga haadkani soo haysta ma garanayo calaamadan iyo waxay ahayd iyo halkan waxa ka jiray waana dhibta ay keenayaan calaamadaha la goosanayo ee wadada loogu tala galay iyo waxaan leenahay dadka deegaanka waliba dadka wadooyinka hareerahooda degan deegaanku isku wada mid maaha dadka laamiga hareerihiisa wadooyinka dhinacyada degan war waxaan inaga dan inoo tahay oo dadkeena dan u tahay maalin walba kuwan dhimanaya way inaga une oo ninba hooyadii iyo walaalkii iyo walaashii dhimanayaan inoo ilaaliya cidii aragtaan qaadanaysan ka reeba waliba dadka wadada maraya waliba gaadiidleeda waxaan leeyahay inta wadada maraysaan wixii aragtaan ama fujinaya ama yara qalooca qaar baa jira dad dabasho marka qaar ridi karto inta dibcaane inoo hagaajiya